buradan maanta aan soo saarnay miisaankeedu wuxuu dhan yahay 7 kiilo taqriiban ayuu dhan yahay marka waa buro aad u weyn qof oo kaligeed soco karto ma raashin cuna karto ma ahan aan ka galaas bi markaan cawa ku hirahay haddana ilaahay wuxuu xukminaa 3 waqti cuno aan caadigayga ahaadan wiil raashin si raboodo Soomaaliya sanado badan oo na dhaafay waxay martigelisay tayaxumo dhanka badqabka caafimaadka ah taas oo sababi jirtay dhimasho badan iyo in dad badani ay dibadda u aadaan xaalado caafimaad taa beddelkeeda isbitaalka Muqdisho City ee magaalada Muqdisho waxaa 15kii bishan uu fuliyay qalliin caafimaad oo kiiskiisu cuslaa Dr. Cabdulqaadir Ciise Diiriye dhakhtarka qalliimada guud iyo kuwa casriga ah iyo Dr. Maxamed Muqtaar Dr. Boolay waxa ay qalliin ku fuliyeen hooyo Maka Aadan Maxamed inta aan qalliinka lagu fulin ayay sidaan ii sheegtay baadi keento waxay tahay xanuun muddo badan 2 sano iyo bar camal xanuunsana marka isbitaal kasta waa tagay jawhar waa tagay jalaqsa 2 mar laga saaray kumbuyuutar wax hadda sidaas laga sheego male infection waxaas laga sheegay iyo isqaras bixi idaan waa isqaras bixi infection waa isticmaal cirbadooyin ay qoran wax siyaada waa marka quraam waa la saaray meel kasta meelan waxaan leeyahay daalin malaha marka dambe xamara la keenay isbitaal Muqdisho City ee hadda la keenay alxamdulillah rabbil caalamiin shukr hadda xanuunkeygii meel uu yeeshay bura laga sheegay oo qalliinka ayaa ahaa buro caloosha kaga taalay taas oo dhaqaatiirtu sheegeen in xidmaheeda dhib ba'an ay ku haysay muddo ayay dhibana u ahayd buradan takorata Muqdisho meel kamid waa imaaday amar jajab aagaas oo wax oo siyaada waa ka way daawooyin badan meesha qarash badan ay ka baxay wax siyaada waa way xanuunkeyga ayran u sii baaba'ay marka saan wax iga dhiga caloosha waa xanuunkeeda meel loo aadaa la waay hase ahaatee qoyska hooyo Maka Aadan waxaa fajac ku noqotay miisaanka burada lagu qalay taas oo culeyskeedu uu yahay 7 kiilo iyo bar Dr. Diiriye wuxuu hogaaminayay fulinta qalliinkan maanta waxaan noo suuro gashay inaan sameeyno qalliin aad u culus oo runtii uu adkaa waqti dheer qaatay hooyo daa ayaa waxaan ka soo saarnay buro aad u weyn oo runtii sida u jeedeen aad u culus oo caloosha uga jirtay runtii buradaas macnaha haddaba culeyskeeda anaga qaadi la'aanahay ayaa qofkaas ku jiray waa runtii arrin aad looga naxo Muqdisho oo dhaqaatiirteeda bulsho badan ay kalsooni darro weyn ku qabi jireen marka loo eego qalliinka noocan ah ayaa waxaa taasi beeniyay hanka iyo rajada caafimaad ee bulshada Soomaaliyeedna sare u qaaday dhaqaatiirta isbitaalka Muqdisho City ee magaalada Muqdisho hooyo Mako waxa ay Muqdisho City Hospital ka hortagtay dhowr isbitaal waxaana loo sheegay in wax buro la yiraahdo aysan meelna kaga oolin jirkeeda oo idil infection iyo waxyaalahaas iyo gaas ay iga sheegan laakiin buro ana afkaygu ku codsadaan dhay buro hadii ku jirto la feeriyo waa feeriyan kuma jirtay dhahan biyaha laga feeriyo kuma jirtay dhahan daawo wax buro kuma jirtay dhahan sidoo kale waxa ay suurto gashay maalintii qalliinka la fuliyay in aan wareysto Yuusuf Aadan Maxamed oo ah hooyo Maka walaalkeed iyo wiilkeeda magacaygu waa Yuusuf Aadan Maxamed gabadhan walaasheeda Maka Aadan Maxamed muddo fara badan ayay ku xanuunsaneed isbitaalo fara badan ayaan geynay waxa loo sheegay inaysan buro ahayn oo wax kale inay noogu tilmaameen ugu dambeyn waxaan keenay isbitaalka Muqdisho City Hospital waxaan markii computer la noola sheegay inay buro ku jirto buridina ma sha Allah waa lagu guuleysay 7 kiilo iyo bar ayay noqotay haddana caafimaadkeeda hayo alxamdulillah magacaygu waa Liibaan Cali Qasaay qoftaan arkaysa burada lagu soo bixi waa hooyaday isbitaal badan ayaan geeyay oo ay dhahan buro ma ahan maanta waxaan geeyay isbitaalka Muqdisho City Hospital ilaahay ma had iskale ayagana ku guuleysnay qalliinka ma sha Allah aadan u faraxsanahay ma sha Allah kan miisaankeeda u bido 7 kiilo iyo bar hooyo Mako ayaa qalliinka kadib ku booqday isbitaalka Muqdisho City waxa ayna ii sheegtay in hadda caafimaadkeedu heer sare yahay ma sha Allah maanta 3 saac la tagay waa fiicanahay aniga Maka Aadan Maxamed jallaqan ka imaaday maalintan imaanayna Allah ogsadaan ahaa oo xanuun saayid ayaa ahay oo 3 sano amba 2 sano ay bar aan la jeefa oo daawadayda jiradayda meel loo aada aan la waayay isbitaal kasta meel kasta hadaan tagay
marka alxamdulillah isbitaal soo muqdisho markaa dhimaaday alxamdulillah taqaatir fiican oo ilaahay ila kulmiyay saacate kumbiyuutar lay saaray si kasto marka la igu sameeyo bura laga helay oo biyo ku dhex jirto waxa la dhahay qaliin waaye kadibna qaliinka marka la dhahay Allah qala Allah iga soo badbaadiyay ma sha Allah buru weyn oo 7 liit oo maxay dhaankeele iyo barra iyo 2 litir biyo laga soo saaray alxamdulillah haddana ilaahay ila jiro waa fiicanahay caafimaad ilaahay isii hadda qof lugtaada ku soconaysanahay ma sha Allah taqdirkayga deeray iyo taqdirkayga boolay ugu dambeyn Dr. Cabdulqaadir Ciise Diiriye iyo Dr. Maxamed Mukhtaar Boolay ayaa ka warbixiyay sida uu u guuleystay qalliinkan alxamdulillah maamaka aad ay u fiican tahay haddana maanta waxaan halkan u fadhinaa inaan ka fasaxno isbitaalka ayadoo aad u fiican alxamdulillah nabad qabto caafimaadkeedan taam uu yahay ilaaha caafimaad ka bixiyo dadaal dheer kadib alxamdulillah waqtigaan ay ku qorneed in qalliinkeedii iyo howlaheedii loo fuliyo ilaahayna wuu aqbalay anaguna ilaahay wuu noo fududeeyay insha Allah maamadeen waxaan u rajeeynaa inuu caafimaadka ilaahay u ziyaadiyo anagana inuu caafimaad ilaahayna siiyo alxamdulillah bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin xanuunada da isku aragtaan ayaan la qarsanin dhaqaatiir Soomaaliyeed walaalihiina ay joogo wadanka waxba leedinka qaban karaa haddii oo xaaladda ay sii xumaatana ayadoo waxaa jirta mar qaarkood dadka ay imaanayaan isbitaaladka ay waxba laga qaban karin runtii sidii nooga warbixisay muddo dheer la xanuunsaneed buro weyn oo uga taalay caloosha buradaas oo runtii aad culays weyn ku haysay cadaadis xoog la ku haysay mindhicirada iyo caloosha culays ku haysay oo runtii cuntada qaadashada iyo miisaankeeda wax dhan aad wax ugu dhibay markay noo timid iyadoo meelo badan ku soo daashay oo runtii xataa waxyaabo kale oo xataa khuraafaad badan ah loo soo sheegay jinni iyo sixir iyo waxyaabo la mid ah caloosha ka hayo waxaan aragnay in buro weyn oo caloosha uga taalo markaan baaritaan u sameynay qaliin runtii aad u cuslaa oo muddana socday ayaan u sameynay buro aad u weyn oo 7 kiilo iyo bar gaaraysa ayaan ka soo saarnay runtii buradiina alxamdulillah waa ka bixinay si oo nabad qabto iyadoon wax maxay communication kale midna uusan dhicin maanta oo gabagabay u tahay istaalka joogisteedii ayaan maxay halkan isla fadhinaa maantana way bixi doontaa alxamdulillah wax hadda mushkilad oo dareemaysa ma lahan waxyaabihii hore mushkiladii dareemayso dhan hadda way ka fiican tahay cuntadeedu u fiican tahay wax qaadashadeedu wax dhan culayska oo ka yaraaday oo caloosha ka hayay marka halkaas waxaan uga faa'iideysanayaa marka waxaa jiro bukaano sidaas oo kale ah oo badan oo runtii waqti badan looga dhumiyo maxay in waxyaabo kale oo aan munaasab ahayn macnaha lagu sheego oo cudurkiisiina aan shaqo ku lahayn qofka kadibna ay gaarto in macnaha qofka wax laga qaban waayo uu gaaro heer maalan ama burooyinka isku bedelaan kansar isku bedelaan ama waxba aan laga qaban karin inay isku bedelaan marka waqtigaas oo kale inta qofka la gaarsiin lahaa waxa haboon macnaha in waqti hore qofka qalliinka uu sameeyo ama uu la tashado qofka macnaha hawshaas shaqada kule takhasuska kule dhakhtar ku haboon inuu u tago taladiisana uu qaato dadka Soomaaliyeed mushkiladeena waxa waaye dad aan aqoon u lahayn waxyaabahan ayaa lagala tashanaya macnaha qofkaas marka qofkii sii wareerinaya waqti badan ka dhuminaya ilaa uu gaaro qofkii heer waxba laga qaban waayo waxaan Dr. Diiriye xusay in bulshada laga dhaadhiciyo waxyaabo quraafaad ah runtii horta kaysaska noocan oo kale ah aad ay u badan yihiin magaalada ku badan yihiin in macnaha qofkii uu intaasoo meel uu tago la yiraahdo waxaan waxyaabo kale waaye wax kale loogu sheego tuf waaye la yiraahdo jinni waaye sixir waaye waxaan meesha kaaga jiro macnaha qofkiina soo waxaas oo dhan mushkiladaas oo dhan aan qabin in macnaha waxaas lagu wareeriyo aad ay u badan yihiin bukaanada sidaas oo kale ah marka waxaan kala talin lahayn inay waxyaabahaas oo kale aad uga feejignaadaan ilaahay asaga yiri fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun macnaha qof walba waxa uu garanayo uu yaqaan in la weydiiyo wixii caafimaad ku saabsan dhakhtar ayaa la weydiiyaa macnaha oo hawshaas yaqaano waliba dhakhaatiirtu si kala duwan yihiin qof walba takhasus leeyahay qof walba takhasuskiisa in la weydiiyo wax laga weydiiyo qofka uu tago